maxaan sameeyay aniga nasiibkayga sidaan oo dhan muxuu iigu cayaarayo qof miyaa jira noloshiisa dab ku qabanayo oo noloshiisa dhibaateynayo midaas ayaan la yaabanaya aniga waaye maxaan dhacay bal fiir edabdaradeeda aniga dhah gacanyaro ayaan kuu noqonaa hadda maxaan u fadhiyaa maan gacanyaro noqdo gudahayga holac ayaa ka shidan qof dareemayana ma laha mar kale haddana ma dharkayga ayaad la sheekaysanaysaa adiga maxaa dhacay dharka dacwad muu iga soo gudbiyane oo ani ma u malaynayni dharka inay hadlaan laakiin hadda waa ogaad inuu iga soo dacwooday marka hore bannaanka u soo baxa hadal marka diidam arooskeeda ayaan rabaa inaan garab ku siiyo oon diyaariyo no maya iga dhegaysa hal mid adiga arrintaas waa ku fududaatay inaad samaysana looma baahnayn maxaa kuu kalifa ii sheeg yaqay aniga muraadan isaga dhigay inaanan u baahnayn oo arooskiisana aan diyaari karo wax walbana aan u adkaysan karo kaale adiga jaceylka ma waxa mooda wax meel adiga ku yeela aad sida aad doonto aad ka samaysan kartid jacaylkana ma aha wax aad ka guulaysan kartid adiga ma fahante yaqay hadda arrinta guul iyo guuldaro ma taagno laakiin muraad ayaa si cad wuxuu ii dhahay aniga diidam ayaan jeclahay markuu sidaas i dhahayna anigana waxaan tusinayaa inaan ahay qof adag oo aan ka maarmo adiga ma aaminsan tahay inta adiga aad og tahay in ka badan inuu ku jecel yahay muraad adiga haddii aad sidaan iila sii hadasho ogow wadnahayga ayaad dhaawacday muraad wuxuu rabaa qashinka meeshaanoo dhan inuu adiga kaa dhex saarto sababtaan ka ogaaday ma taqaanaa waxaad ii sheegto dhan adiga been waaya muraadna wuu ku qasban yahay inuu naagtan uu guursado adiga marka meesha ma u sii caddeey inuu i jeclayn muraad sida adigoo kale meelahan kuma oynayo adigana waxba ma qarsan kartid laakiin muraad wax walba uu qabo niyaddiisa ayuu ku haysanaya waxba lagama ogaanayo macnaha ma fahanti aniga maba aqaan waxaan sameeya hadda orod bax ee shaqadaada dhammayso wax walbana adigaa gadaal ka ogaan doono orod meeshaan ka dhaqaaqa dharka dhan ilin ina iga gaarsiisaan ka baqaya ilinaaba iga gaari rabta sidee tahay aniga waan fiicanahay xaaladdeeda okey waaye aniga maanta sideen kuula ekahayna dhar cagaaran wata adigana dharkaa guduud waay waa isku qanacsanaya run ahaanti naga dhaafiyaaqay hallow asliya ii imaaday mataqaanaa yaa ku imaaday shimbirti maa ku imaada nasiibkaagoode yaa waayn yaa ku imaaday cabdikariin leehaydin waan ku baryaa maya aabbahay ii imaadano ani aabbahay ay aabbaa maa ku imaaday weliba way raaligeliyan kudha wuxuu dhahay gabadheeda iska kay cafi anigana xisoo dartiis meelaan istaagaan waayaan ku dhaa waa isku yaaya saaxiibe runaantii aabbaa aad buu kuu jecelyahay balse adigaa fahmi waay jecelkiisaas darteeda ku khasbanaada inuu ku raaligeliyo anigana aadan ugu faraxsana waxaan filaynaa ii sheegta saaxiibe waxaan ogaaday inuu ii jecel yahay agtiisana aan qiimo ka leeyahay wax walbana uu ii samaynaayo xitaa lacagta way keenay kuna ka dhiman anaga ku darsanaan taas dhib ma lahan ninkaasna qatar waayaan ku dhahay ay asli aabba uu ku jecel yahay aabba fiican waay arinta farxad leena wayna xayaatu sheegta adiga hada telefoon u dir maskiid shaqadaas ee taas ka maya hadda ma wacay ani waxaan rabaa labadeena si wada jira inaan saaxiibtaan farxadda la wadaagno una sheegno marka iska dhaafa daawicin anina ma wacay arin lagu farxay sheegta adan ugu faraxsanay markale ay soo wacay la damina hal mar isla daminayna waayaan kow labo saddex hay waa kuwaana waxaan ku keenay 23 shirkadood oo diyaariya aroosyada ayaga ayaa ku diyaarinaya arooskaaga waa kuwaana qiimahan meesha ayuu kugu qoran yahay nasiib wacan waa ka sii tagay intee u cararaysaan adiga run ahaantii waxyaabo kale oo la igaaga baahan yahay inaan diyaariyo ayaa jiro waan ogahay laakiin adiga garabkaa rabaa waxaan rabaa